kulan oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha badda iyo amniga markii uu kulankaasi oo soo idlaaday kadib waxaa saxaafadda la hadlay Abukaate Xasan Xuseen Xaaj oo ka warbixinaya qodobadii ka soo baxay kulankaasi. maanta waxaan shir ku qabanay xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka shirkaas oo la xiriiray maritime security yani arrimaha badda iyo amniga badda run ahaantii dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed markii hore waxaa lagu eedan jiray in burcadbadeed iyo dhibaato ay ka jirtay dalka Soomaaliya marka xafiiska deputy prime minister kulamo oo bilaa iyo ka dhaca kulamadaasna waxaa looga hadlaa sidii loogu hortagi lahaa dhibaatooyinka badda weyn oo Soomaaliya ay leedahay ay ka dhacdo dhibaatadaas waxaa ugu weynaa burcadbadeednimada iyo sunta iyo waxyaabaha dalka iyo dadka waxa u geysanaya oo badda lagu soo daadin jiray waxaan isku daynay anagu wasaaradda cadaalad ahaan sharcigii burcadbadeedda iyo afduubka badaha inaan horumarino sharcigaas oo hadda wasaaradda cadaaladda ay soo gabagabaysay oo aan rajaynayno inaan la wadaagno dowlad goboleedyada dalka bulshooyinka Soomaaliyeedna maaragtay aan u soo bandhigno sharcigaas insha Allah wuxuu ku dhisnaan doonaa shuruuc fara badan oo Soomaali hore u lahayd iyo shuruucda caalamiga ay leedahay Soomaaliya marka run ahaantii shirka maanta waxaa ka soo qayb galay dowlad goboleedyada wasiirada cadaaladda qaar ka mid ah iyo wasaaradaha kalluumaysiga iyo wasaaradaha gaadiidka iyo baddaba way ka soo qayb galeen marka shirkaas si fiican buu nooga dhamaaday waxaana rajaynaynaa shirkan balaha inuu noo socdo sharcigaasna aan diyaarino dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkana insha Allah wada shaqeyn wanaagsan in ay arintaas ay ka sameeyaan wada shaqeyntaas oo socoto shirka dambena insha Allah waxaan rajaynaynaa in lagu qabto magaalada Kismaayo waxaan isku dayaynaa gobolada kale in lagu qabto marka waxaan u sheegay ummadda Soomaaliyeed shirka aan qabsanay inuu guul ku soo dhamaaday waxaana rajaynaynaa insha Allah wixii Soomaaliya lagu ilaalin lahaa baddeeda shuruuca inaan diyaarino in ciidankeena badda ilaalinaya iyo coast guardkiina asigana la hormariyo marka guulba nooga soo dhamaaday insha Allah kullay wax kasta la qabanayo horta waa in dawladdeena Soomaaliya ay hormuud ka ahaato wadankan Soomaaliya leh wuxuu soo maray dhibaatooyin waxaana loo baahan yahay hadda horta in anaga la imaano habkii wadankeena maaragtay ku horumarin lahayn baddiisa aan ku horumarin lahayn baddiisa aan ku ilaalin lahayn waxyaabaha ugu horeeya laga hadlayna waxaa way shuruuc horena way u jirtay maadaama hadda nidaamka federaalka la qaatay in shuruucda dib looga laabto waa loo baahan yahay waxaa kale loo baahan yahay dambiyo fara badan oo hore loo garan jirin oo hadda caalamkan aan joogno soo ziyaadada jira dambiyadaasna maaragtay in lagu daro sharcigan cusub iyo xeerka qaabta Soomaaliyeed oo ayadana dambiyada dhan ay ku qoran yihiin mucaawanada aad sheegtay hadda caalamka dhan Soomaaliya waxa jira saaxiibaan leenahay oo dawladda taageeraan leenahay dawlad khaas aan sheegayno ma jirto laakiin anaga hadda u taagan dalkeena inaan horumarino difaacano shuruucda iyo ciidankii lagu difaac lahaana aan diyaarino Maryam Xuseen Jibriil SBS TV magaalada Muqdisho.